waxaan nahay qoom uu ilaahay ku cisayey islaamnimo. haddii aan sharaf iyo cizi ka raadino cidaan ilaahay ahaynna, ilaahay wuu ina dulleeyaa. khaalid bin waliid radiyallaahu canhu ayaa fariin u diray kisraa, boqorkii faris, wuxuuna ku yidhi sidaan: islaam waad nabadgelaysaa, haddii kale waxaan kuula imaan doonaa rag geerida u jecel sida adinka u jeceshihiin nolosha. kisraa markuu akhriyey fariintii uga imaatay libaaxii islaamka khaalid bin waliid radiyallaahu canhu, wuxuu isna fariin u dirsaday boqorkii jaynaha asagoo ka dalbanaya gurmad iyo gargaar. boqorkii jaynaha asagana wuxuu ku soo jawaabay sidaan: kisrow, wax awood ah uma lihi qoom hadday doonaan inay dilaaciyaan buuraha dilaacinayo. marka aan naqaanay waxa aan haysanno qiimahooda. waxaa la sheegay qarniyadii dhexe in mid ka mid ah culammada kirishtaanka uu u istaagay inuu khudbeeyo, wuxuuna yidhi sidaan: waxaa wax laga xumaado oo xaqiiqdii inaan arkayno maanta dhallinyarada kirishtaanku isku ekaysiinayo dhallinyarada muslimiinta, labis ahaan iyo dhaqan ahaanba, iyo xataa fikir ahaan. xitaa haddii ay rabaan inay ku faanaan gabadha ay jecelihiin horteeda, waxay ku dhahaan waan ku jeclahay. carabi ahaan mid walba wuxuu tusayaa inta uu horumarsan yahay, waayo wuxuu ku hadlay carabi. qaysarkii ruum ayaa fariin u soo diray mucaawiya radiyallaahu canhu, wuxuuna ku yidhi sidaan: waan ognahay waxa adinka iyo cali idinka dhex dhacay, waana ognahay inay adinka uga xaq badan tihiin khilaafada. hadday i amrayso, waxaan ku soo dirayaa ciidan kuwaasoo kuu keenaya madaxa cali. mucaawiyana wuxuu ku soo jawaabay sidaan: walaalo ayaa dooday, ee adiga maxaa kaa galay u soo dhexgalaysaa? haddii aadan iga aamusin, waxaan kuu soo dirayaa ciidan, bilowgiisana uu agtaada joogo, dhammaadkiisana uu agteeda joogo, kuwaasoo ii keenaya adiga madaxaaga si aan ugu geeyo cali. waxaa la sheegaa inuu qaysar isla fariintii u diray cali, calina uu soo jawaabay sidii mucaawiya. maantana waxaan raadinaynaa dowladuna ilaaliyo, waxaana dalbannaa faragelin, cidnana uma jawaabto. waxaana diyaar u nahay inaan isbahaysi la samaysanno shayaadiinta si aan uga guulaysanno walaalahan aan isku khilaafnay fikirka.